maanta meeshaas ka soo ka keentaan ilaahay idinkaga rajeynayaa waana u diyaarsantihiin runtii ummadda Soomaaliyeed kulli meel kasta ay joogaanna waa ay sugayaan in magacii iyo sharafkii Soomaaliyeed lahaan jirtay idinka xulkii qaranka ah ina meeshaasi aad calankii Soomaaliyeed ee buluuga ahaa kor u qaadaan oo aad uga guuleysataan hadduu ilaahay yiraahdo kooxda ka soo horjeeda si xaraga leh oo qurxoon oo wanaagsan oo sharaf badan inaad uga guuleystaan yaa ilaahay idinkaga rajeynayaa runtii meel walba iyo qof kasta Soomaaliyeedna waa idinka hadlaan waa idin fiirsanayaa waxa matalaysaan qaran Soomaaliyeed waxa matalaysaan dal Soomaaliyeed yaad matalaysaan marka insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa inaad halkaas guul ka keentaan hadduu ay yiraahdo waa mahadsantihiin yaa maanta meeshaas ka soo ka keentaan ilaahay idinkaga rajeynayaa waana u diyaarsantihiin runtii ummadda Soomaaliyeed kulli meel kasta ay joogaanna waa ay sugayaan in magacii iyo sharafkii Soomaaliyeed lahaan jirtay idinka xulkii qaranka ah ina meeshaasi aad calankii Soomaaliyeed ee buluuga ahaa kor u qaadaan oo aad uga guuleysataan hadduu ilaahay yiraahdo kooxda ka soo horjeeda si xaraga leh oo qurxoon oo wanaagsan oo sharaf badan inaad uga guuleystaan yaa ilaahay idinkaga rajeynayaa runtii meel walba iyo qof kasta Soomaaliyeedna waa idinka hadlaan waa idin fiirsanayaa waxa matalaysaan qaran Soomaaliyeed waxa matalaysaan dal Soomaaliyeed yaad matalaysaan marka insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa inaad halkaas guul ka keentaan hadduu ay yiraahdo waa mahadsantihiin yaa xulka qaranka Soomaaliya ayaa maanta la ciyaaraya dhigiisa dalka Zimbabwe kulanka lugta labaad ee isreebka koobka adduunka ee 2022 wadamada qaaradda Afrika waliba marxaladda koobaad waxayna haystaan natiijo fiican xulkan qaranka Soomaaliyeed maadaama oo ay hal iyo eber kaga soo adkaadeen kulankii martida loo ahaa ka dhacay dalka jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Djibouti Soomaaliya waxay u ahayd markii ugu horeysay oo ay guul ka gaarto kulamada isreebka sida lagu daabacay bogga FIFA 12 kulan oo ay ciyaareen kaliya guushiye ay ku heleen bishan wadanka Djibouti ayaa loo diiwaan geliyay kadib guushaas bogga Twitter-ka ee ay FIFA ugu tala gashay in lagu buunbuuniyo wararka koobka adduunka ee 2022 ayaa soo daabacayay dhiirigelinta taabanaysa ciyaartoyda Soomaalida oo muujiyay dadaal aan la filaynin marka hal tallaabo u jirta booska taariikhiga ah ee wareegga guruubyada isreebka koobka adduunka wadamada Afrika ayaa lagu soo qoray maalintii shalayto xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa markan tallaabo qurux badan qaaday kadib markii ay xulka ku soo dareen dhowr ciyaartoy oo qurbaha uga ciyaarta wadamada hormaray isbedelka laga dareemayo xulka oo tallaabo weyn qaaday dhanka qaranka Zimbabwe waxay xulkooda dib ugu yeereen 3 kamid ah ciyaartoyda kuwaasi oo horey looga ganaaxay qaranka maadaama lagu eedeeyay in ay mas'uul ka ahaayeen gadoodkii ay sameeyeen xidigaha wadankaas ka hor bilowgii koobka qaaradda Afrika ee lagu qabtay dalka Masar taageerayaasha Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe iyaga oo ka ambabaxay wadanka Koonfur Afrika si ay taageero ugu muujiyaan qarankooda oo kulan dhimasho la ciyaaray dhigooda Zimbabwe sida uu ku soo waramay wariyaha warbaahinta qaranka Koonfur Afrika Cabdulqaadir Axmed dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraya boqolaal ayaa ka qayb galaya daawashada ciyaartaasi oo si weyn loo sooyo si ay taageero ugu muujiyaan xulka qarankeena Soomaaliyeed oo maanta lugta labaad ee isreebka koobka adduunka 2022 kula ciyaaraya dhigooda dalka Zimbabwe si kastaba ha ahaatee kulanka ayaa ah mid si weyn loo wada sugayo magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe ayuuna kulankan ka dhacaya galabta 4 marka saacadu ay tahay xilliga geeska Afrika maanta meeshaas ka soo ka keentaan ilaahay idinkaga rajeynayaa waana u diyaarsantihiin runtii ummadda Soomaaliyeed kulli meel kasta ay joogaanna waa ay sugayaan in magacii iyo sharafkii Soomaaliyeed lahaan jirtay idinka xulkii qaranka ah
inaad meeshaasi aad calankii Soomaaliyeed ee buluuga ahaa aad kor u qaadaan oo aad uga guuleysataan hadduu Ilaahay yiraahdo kooxda ka soo horjeeda si xaraga leh oo qurxoon oo wanaagsan oo sharaf badan inaad uga guuleystaan yaa Ilaahay kaga rajeynaya runtii meel walba iyo qof kasta Soomaaliyeedna waa idinka hadlaan waa idin fiirsanaya waxa matalaysaan qaran Soomaaliyeed waxa matalaysaan dal Soomaaliyeed yaad matalaysaan marka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa inaad halkaas guul ka keentaan hadduu ay yiraahdo waa mahadsantihiin yaa maanta meeshaas ka soo ka keentaan Ilaahay kaga rajeynayaa waan u diyaarsantihiin runtii ummadda Soomaaliyeed kulli meel kasta joogaana waa idin sugayaan inaan magacii sharafkii Soomaaliyeed lahaan jirtay idinka xulkii qaranka ah inaad meeshaasi aad calankii Soomaaliyeed ee buluuga ahaa aad kor u qaadaan oo aad uga guuleysataan hadduu Ilaahay yiraahdo kooxda ka soo horjeeda si xaraga leh oo qurxoon oo wanaagsan oo sharaf badan inaad uga guuleystaan yaa Ilaahay kaga rajeynaya runtii meel walba iyo qof kasta Soomaaliyeedna waa idinka hadlaan waa idin fiirsanaya waxa matalaysaan qaran Soomaaliyeed waxa matalaysaan dal Soomaaliyeed yaad matalaysaan marka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa inaad halkaas guul ka keentaan hadduu ay yiraahdo waa mahadsantihiin yaa xulka qaranka Soomaaliya ayaa maanta la ciyaaraya dhigiisa dalka Zimbabwe kulanka lugta labaad ee isreebka koobka adduunka ee 2022 wadamada qaaradda Afrika waliba marxaladda koobaad waxayna haystaan natiijo fiican xulkan qaranka Soomaaliyeed maadaama oo ay hal iyo eber kaga soo adkaadeen kulankii martida loo ahaa ka dhacay dalka jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Djibouti Soomaaliya waxay u ahayd markii ugu horeysay oo ay guul ka gaarto kulamada isreebka sida lagu daabacay bogga FIFA 12 kulan oo ay ciyaareen kaliya guushii ay ku heleen bishan wadanka Djibouti ayaa loo diiwaan galiyay kadib guushaas bogga Twitter-ka ee ay FIFA ugu tala gashay in lagu buunbuuniyo wararka koobka adduunka ee 2022 ayaa soo daabacayay dhiirigelinta taabanaysa ciyaartoyda Soomaalida oo muujiyay dadaal aan la filaynin marka hal tallaabo u jirta booska taariikhiga ah ee wareegga guruubyada isreebka koobka adduunka wadamada Afrika ayaa lagu soo qoray maalintii shalayto xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa markan tallaabo qurux badan qaaday kadib markii ay xulka ku soo dareen dhowr ciyaartoy oo qurbaha uga ciyaarta wadamada hormaray isbedelka laga dareemayo xulka oo tallaabo weyn qaaday dhanka qaranka Zimbabwe waxay xulkooda dib ugu yeereen 3 ka mid ah ciyaartoyda kuwaasi oo horey looga ganaaxay qaranka maadaama lagu eedeeyay in ay mas'uul ka ahaayeen gadoodkii ay sameeyeen xidigaha wadankaas ka hor bilowgii koobka qaaradda Afrika ee lagu qabtay dalka Masar taageerayaasha Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe iyaga oo ka ambabaxay wadanka Koonfur Afrika si ay taageero ugu muujiyaan qarankooda oo kulan dhimasho oo la ciyaaray dhigooda Zimbabwe sida uu ku soo waramay wariyaha warbaahinta qaranka Koonfur Afrika Cabdulqaadir Axmed dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraya boqolaal ayaa ka qayb galaya daawashada ciyaartaasi oo si weyn loo sooyo si ay taageero ugu muujiyaan xulka qarankeena Soomaaliyeed oo maanta lugta labaad ee isreebka koobka adduunka 2022 kula ciyaaraya dhigooda dalka Zimbabwe si kastaba ha ahaatee kulanka ayaa ah mid si weyn loo wada sugayo magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe ayuuna kulankan ka dhacaya galabta 4 marka saacadu ay tahay xilliga geeska Afrika maanta meeshaas ka soo ka keentaan Ilaahay kaga rajeynaya waan u diyaarsantihiin runtii ummadda Soomaaliyeed kulli meel kasta joogaana waa idin sugayaan inaan magacii sharafkii Soomaaliyeed lahaan jirtay idinka xulkii qaranka ah inaad meeshaasi aad calankii Soomaaliyeed ee buluuga ahaa aad kor u qaadaan oo aad uga guuleysataan hadduu Ilaahay yiraahdo kooxda ka soo horjeeda si xaraga leh oo qurxoon oo wanaagsan oo sharaf badan inaad uga guuleystaan yaa Ilaahay kaga rajeynaya
runtii meel walba iyo qof kastoo Soomaaliyeedna waa idinka hadlaan waa idin fiirsanayaa waxa matalaysaan qaran Soomaaliyeed waxa matalaysaan dal Soomaaliyeed yaad matalaysaan marka insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa inaad halkaas guul ka keentaan haduu ay biiraahdo waa mahadsantihiin